marka lagu farxo farxad kaliya ma ahan waxay ilama tahay inaan arko intaanu dhalinyaro baadacada inuu yimid isbedelkii aan doonaynay ayaantan daba la hadal hayay waxaan u maleynayaa waa markii ugu horeysay oo dhalinyaro intaan la eg hal hol iskugu timaado oo si dimuqraadiyad leh ay dhala cadaan ku codeeyaan taa markaan ka soo tago wejiyadan farxadda badan ee beesha baadacadde xusuus gaar ah ayay noo tahay iyo ku dayasho waxaan rajaynaynaa anaga keliya ma ahna baadacadde keliya ma ahna beelaha kale Soomaaliyeed inay nagu deedaan oo si transparent dhala cadaan intay hor dhigtaan ay iskugu codeeyaan qofkii soo baxan ay laga shaqeeyaan waa fariin dhalinyaro ay dhiibto tii ugu muhiimsaneed waa wax lagu daydana waa inteenaan haddii fariintan aan wada qaadno oo Soomaali weyn aan wada qaadno waxaa hubaala maalmo gudahood inaan ku gaarsiin karno Soomaaliya min raas Kaaboni ilaa raas Caseer sababtoo ah cidna ma xoogeenno cidna ma dhaceenno laakiin waxaan rabnaa in aan muujinno in qaab habaysan lagu dooran karo hoggaan haddii dhalinyartiisaan wax ku doorteen waxaan rajaynaynaa odayaasheenna kale ama siyaasadaha ku jiraan ama arrimo kale bulshada ku jiraan si transparent saanoo kale in dhala cad in hor yimaadaan saxaafad soo qayb gasho ragga wax doonaya meel la fariisiyo ka soo qaybgalayaal ama korjoogyaalna ay joogaan taa markaan ka soo laabto waxaan u hambaleynayaa ragga dhalinyarada ah iyo gabdhaha isku soo sharxay xilkan kullataba qof markuu tartamo laba shay u diyaarsan yahay inuu guulaysto iyo in laga guulaysto macnaheedu ma ahan haddii laga guulaysto inaad guul daraysatay tusaale waxaa idinku filan anigii hor taagan waxaan ku jiray raggii u tartamay xildhibaannimada beesha baadacadde 3 xildhibaan ay leh xilkii aan doontay anoo sida ma soo laabanin macnaheedu waxa waa nin walaalka yaa la soo laabtay maalintii liga guulaystay intaan saxaafadda hor istaagay waxaan idhi walaalkii waa ku mahadsan tahay waxa waaye in aan qaado in aad qaado isku mid ahayd waxaana baas ka ballan qaaday inaan la shaqeyn doono ilaa haddana sidaan ula shaqeeyaa soo fariintaas marka waxaan ula jeedaa ragga dhalinyarada soo tartamay kullataba qofkii ilaahu calku baa qaada doona wax walba qadar waaye inay la shaqeeyaan qofkii soo baxo caawa waxaa meeshaan ka dhacay xaflad aad u qurux badan doorasho ah oo balance ah si cadaalad u dhacday dhalinyarada beesha baadacadde waxaan leeyahay hambalyo Okay, intaan codadka sheegay waxaad totally good oo codaysay 736 qof balse nasiib xumo 26 ka mid ah ma aysan haleelin oo shuruucdii aan u dejinay codayntii ma aysan haleelin saas daraadeed 26 ka mid ah way qasaartay codadkaas natiijada ee musharaxiinta minaanadeeda u kala heleen haddaan ku hormarno injineer daahir cabdullaahi abiikar wuxuu helay 46 cod aan u sacbino رملة محمد عبدي أيضا وحي شيء بقول إيه لواتن عن سعدين يحيى عثمان حبيب ويالي بقول لواتن سجال حسين سعد أو جلالي يحيى حسن تكو ويالي بقول لحنا يلحق سجنا عن جلالي محمد حسين نور وليو ويالي يشرح أبو جوليسي محمد حسين نور وليو أنا صاحبنا هذا الحق بيننا
gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada beesha baadicadde maxamed xuseen nuur weliyo waxaan halkaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddiga doorashada oo ahaa dadkii u istaagay in wax qurux badan ay soo baxaan sidoo kale waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa golaha siyaasiyiinta beesha baadicadde JCB si gaar ah waan ugu mahadcelinayaa maadaama ay kaalin mugila ka soo qaateen maanta waxa quruxda badan ee noo soo wada baxay sidaa daraadeed waxaan si gaar ah haddana ugu sii mahadcelinayaa musharaxiinta hamigooda u ahaa inay wax u qabtaan bulshadooda si gaar ah mar koowaad iyo mar labaad waan idiin mahadcelinayaa waxaan kaloo ku mahadcelinayaa qodbadani maanta caawa waxay noqon doontaa qodbad mahadcelina laakiin waa inoo dambaysaa wax ka wada hadalka ha yaraada hawshaa badnaata wey insha allahu tacaala marka dadkii la codeeyey dadkaan la codeeyinba waan idiin salaamaya weliba si gaar ah dadkii la codeeyey dadkaan la codeynin waad mahadsantihiin waxaad ka shaqayseen sidii maaragtay aan ku yeelan lahayn hogaamiye alxamdulilah waxaa mahad iskale allah marka xigta dadkii la codeeyey dadkaan la codeynin intaba waan salaamaya sidoo kale si gaara waxaan ugu soo noqonayaa mahadcelinta gudoomiyaha guddiga doorashada Dr. Abdiraxmaan Qoryoole oo ah halyeygii ka dhageeyey hamigiisa in guud ahaan guddiga oo la mid ah iyaguna